السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولالي خالق وعد السلامي مركلة يا موقال كله هبيني ما ونحسن سودو هذا أصحابي حالا وح موقال دي مصودقين ماذا حنون أيان لك عواي إلا هذا مدح حنون يا يسدعين إلهي مدح عافيه dad badan oo waxa idin ku jira ahlo khayr ah dad badan oo waxa idin ku jira sida xaqiiqda ah hadii gacmaha saas ilaahay ugu taagaan oo ilaahay soo celinaynin marka insha Allah igu dara haduu alla qadar ducadaas soo dhawaada عوض محن نوضا معجسو لو امتحامي قبل صوماليات قرقيدة ساس ماشي اللي رابع إساء بس وشيفتو ضبق الله حرام سررت تشيف كدوشي يدو اللي قد ليو إلهي وح أو سنو كينين يعني إلهي كدل بنين ديبك قبل داس هايستا يرير كيدا نما هايستو حدنا حنروحي يهان بستيلاهاي قرآن كمركان بالله وانجرنا يا مودي كارو haddii dhibkan ku haysta laha aan ku tusi doono maxaa sameyn lahayd walaal macaan maxaa sameyn lahayd wallahi gabadhaas markaan muuqaalkeeda arkay qalbiga aad buu ii argagaxay aniguna daa'ima waxaaba nacabahay bahlaha masaska abeesooyinka waxa markaan arko ama aan maqlo xaaddaas ay wada istaagaysa caawa hadda mas iga sheekayso lugta meesha aan dhigaayo waa fiirina hadhow sariirta haddaan jiifo wax qabow ii taabtaan dhulka loo taagana saarkaya firinimo intaan ka qabo aad aan nacab baalahaas marka ilaahay wuxuu soo horta ku keenin horta baa ka saadsanin waxaana ruuxiyahan bistay laahay waxa waa qabsan la adigu quraanka akhrisan karaya adoo hadaa quraanka akhrisata kuba xanuunsee caafimaad alla ka rajaynaya ka waran hadii sariirtaada dusheeda aad aragto masjiifa ha xasbunallahu wa ni'mal wakiil abeesa aan ku dhaho maskaba sii weyn horta taas muuqaalkaas waa idin wadaa haduu ilaahay qadaro waxaan kala noo wadaa biidnillaahi alkariim gabdho walaalo ah oo duca naga soo dalbadeen inaan u duceyno insha Allah dhiirigelin yarna waa noo wadaa haduu alla qadar meesha video ugu dambeeyda ayaan dhiirigelin noogu wadaa haduu ilaahay qadaro bas waa noo hormariyaa maya waa noo dib marnaa dhiirigelinta meel walba joogno ilaahay waxaan ka rajaynayaa caafimaad taama oo dhiigi dhimirka gala qof walba xanuunsan ilaahay waxaan leeyahay xanuunka dambi dhaaf ha uga dhigo mu'minka qofka mu'minka waa la imtixaanaa waana la xanuunjiyaa sifa dambiyada iyo waxyaabaha oo galay looga daadiyo oo looga dhaqo ilaaha ku mahadsan ilaahay waa xaliim dulqaad badane markaan dambaabayno markaan dambiyada ku jirno wuu noo dhimrinayaa nama qabanayo markaan qandhano xanuunsanana dambiyadii wuu naga dhaqayaa yaa raxmaan ilaahay waa qafuur raxiim marka soo dhawaada abaayadan muuqaalkeeda kana saaraya insha Allah in yar oo kamida ayaan dhageysan doonaa haduu ilaahay qadaro horta gabadhaas si kal iyo laab ah si min qalbi ah si waalidnimo ah hooyo aaba waxa doonta haabe anigu duceyno sababtoo aabahalaad arki doonto oo indhaha ay qaban doonaan guri ilmo joogaan dad nool ay joogaan wax lagu dayn kara miya subhanaka malikul qudus ilaahay ya rabbi ya raxmaan waxaad naga yeedahay nagu soo deynin ilaahu waxaad naga yeedahay nagu soo deynin ilaahu cadowgeena cagta hoosteeda geli dad ayaa shaqaysanaya adduunkan iyagoo ku nool jahannamo iyo aakhira ay naar shaqaysanayaan dad baa dadkan ku mashquulsan balaayo ayaa lagu soo dirayaa xasbunallahu wa ni'mal wakiil horta kiliibkaas isla daawaneena wax yar oo badnayn haduu ilaahay qadaro maalmahan ayuu social media ku jiray marka cod yar baan saar waan codeeyay haddana waan arkaynaa insha Allah soo dhawaada xasbunallah wa ni'mal wakiil ilaahay ayaan ka tala saaranaynaa masiibooyinka iyo dhibaatooyinka socda halkan aad u jeedaan walaalayaal gabar walaal ah ayaa soo dhigtay gurigeeda dhibaato haysata social media ilaa shalay daraad baan arkayay waxaan aad u jeedaan waa abeeso gurigeeda meel kasta oo kamid ah abeesadaas ayaa saa u jiifta gabadhaas oo lagu imtixaanay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanay inuu ka dulqaado dhibaatada haysata gabadhaas sariirta qolkeeda jiifka dushiisa ayaa midaas iyadoo saaran lagu dilay waana abeeso caadiya waa dareemi kartaa balaayo aadan haysan markaad saadsato wallaahi waxa aan iska sheeganaa bal qofkaas ilaahan kugu dhaarshay dadka dhahay xanuuno ruuxiyahan qaba quraanka ay qabanaya oo ku xanuunsanaya qofka waxaan lagu saliday soo ma arkaysaan gabadha markay muuqaalkan codka saarayso gurigeeda suuratul baqara ayaa ka shidnayd maaragtay codka uu soo bixi waay laakiin cod baan idin saarayaa
saad arkaysaan waa abeeso sariirta qolka jiifka dusheeda ayaa lagu dilay. waxay tiri salli haddaan ku dukado oo aan meel dhigo salliga iyadoo dhex jiifta la arkayaa. waxaa kaloo lagu intixaamo hangarale ama dabaqalooc u taqaano sida wixii cayayaanka sida aad taqaanaan bahlaha yaryar roob la dhaca la yiraa ama maaragtay marka roobka uu doo maaragtay soo daata maaragtay yararka camal ayaa loo soo xaaqayaa dabaqaloocaas def guri dhex isagoo dhooban kaaga daran waa wada meyd ayay tiri. dhibaatada jirta ayaa maaragta ah bahlahan guriga dhex yaalayaa laakiin hadda ka hor alxamdulilah cidna kama aysan cunin siday sheegtay oo qof ma aysan ka qaniinin laakiin gurigeeda waxaa ka dhacay cabsi iyo sas ilmo ayaa ku nool hurdadii baa laga go-ay sariirta korkeeda ayaa abeeso lagu dilayaa haraankii meel kasta ayuu yaalaa wax aad iyo aad looga yaabo waaye. waxay tiri gurigaygu ma laha dulduleel waa guri mutulaad saad ujeedaan qurux badan meel duleesho iyo meel baqsan iyo meel bahal ka soo galaan midna ma laha wax aanan ku shidin iyo wax aanan ku samayn ma lahan ayay tiri. bahlaha waxa lagu shido oo geedaha hadday xulba tahay xildiid maa la dhihi jiray iyo xabasowda hadday tahay iyo hadday wax kaloo guri lagu qiicshato inta waan shida ayay tiri. waan yaabanaha ayay tiri waxaan ayaa muddana baacsanaya noo soo duuciyey inuu ilaahay subxaana watacaala naga dul qaado ayay tiri. marka gabadhaas iyo reerkeeda aan u duceyno annaguna hadduu alla qadaro aana ku cibro qaadano suuratulbaqara ayaa guriga ka shidan 9 oo ka baxaysa bahlaha aad u jeedo hadda ka hor cid ma cunin haraamadaas ayagoo meedaha la arkaya ama dibqaloocyadaas laakiin abeesadu iyadoo waxaa la arkaya halkan jiifta oo maaragtay nool oo salliga dhex jiifta oo sariirta ag jiifta oo meel walba jiifta waa abeeso mas xataa kasii weyn waa abeeso. ilaahay ha ka dulqaado aan u duceyno xasbuna allah wa nicma alwakiil. ilaahay baa laga tala saartaa dhibaatooyinkii la arkay aan allah ka tala saarano ayadana ilaahay ka dulqaado aan u duceyno waa waxyaabo maaragtay aad u qariib ah oo aad u naxdin badan aad u argagax badan aan u duceyno insha allah biidni illaahi alkariim. dhibaatadaas ayaa haysato gabadhaas Soomaaliyeed ama faamiligaas Soomaaliyeed ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu ka dulqaado. rabbiga raxmaanka waxaan u weydiinaynaa inaan dhibaato ka soo gaarin waxaas halaq iyo bahal dhex yaala gurigooda inuu ilaahay cadowgooda cagta hoostooda geliyo inuu ilaahay ka dulqaado ayaan u weydiinaynaa. hurdada ka go'na ayay tiri sas ayaa ku dhacay bahlaha aad u jeedaan guri ay dhex yaalaan ayaa lagu hurdi karaa laguna seexan karaa oo meel uu ka soo galay iyo meel duleesho aada garanayn ee sariirta dusheeda wax kuu saaran xasbuna allah wa nicma alwakiil. balaayo hortana haysata maaragta aan haysayaana u yeeranin daday balaayo haysataa waxaa la yidhi intay bela kaa maqantaa waalka ay ku maqan tahay. gabadhaas afartaanu marna hadduu ilaahay qadaro faatixada aan u marno inuu ilaahay ka dulqaado qof walba oo fiidowgan soo gaaraa 4 faatixa ha u maro hadduu ilaahay qadaro. runtii wax laga naxo laga argagaxa waaye wax laga naxo oo laga argagaxa waaye muddo ayay waxaana baacsanayaan ayay tiri muddo ayuu dhibkaana haystaa ayay tiri. xasbuna allah wa nicma alwakiil. ilaahay ka dulqaado ilaahay baa garanaya waxay tahay laakiin kulli anigu inay cadow tahay baan u dareemayaa sida aqliga yarka uu ii sheegayo. aan u duceyno biidni illaahi alkariim. 2 gabdhood oo abaayo ku jiraan asxaabteena ayaa duca naga soo dalbadeen. mid kamid waxay tiri xanuunada ruuxiga ayaan ku dhibanahay quraanka markaan akhriyo waan ku xanuunsadaa waan joojiyaa haddana waan bilaabaa ayay tiri haddana waan bilaabaa waan gariiraya aniga dhan waan xanuunsanayaa. maantadan oo waxay tiri aan akhriyay istighfaarta oo 5,000 ah salliga nabiga dhowr kun ah birabil falaq iyo birabil naas ayaan akhriyay 114 ka akhriyay waan qasmay waan matagay waxay tiri aniga dhan nooc kale ayaan noqday. ilaahay waxaan leenahay caafimaadkii taamka ahaa ee dhuuxa iyo dhiigga kuu galaha kuu soo saaro. waxaan kugu dhiirigelinaynaa aniga iyo asxaabtayduba inaad laasimto oo aadan joojin oo aad sida maanta ugu xanuunsatay ugu matagtay ugu qasantay caafimaadkaagii ay bilow u tahay ayaan rabbiga raxmaankaana ku weydiinaynaa adiguna go'aan saxa qaado oo dhab alla imaaw. abaayadan waxaa kaloo la rabaa in loogu duceeyo ubadka ayaa iga soo daahay bay tiri 3 caruur ayaan haystaa ilmahayga waa ilmo weyn iigu yar ilaa iyo dhowr 10 jir weeyaan caadada ee ay qalqasha dhibaato noocaas ay haysato marka inuu ilaahay ubad siiyo horta ha loogu duceeyo. Number 3 aniga iyo odagayga waxay tiri waa nacay odaygii dhan baan banacay xanuunadan ayaa ku diraya waxaan haysta iyo waxaan ay ka sheeganayso ayaa ku diraya halkaas baa aniga seexdaa halkaas u seexdaa
ilaahi subxaana watacaala labada qof uu isku kaamil yeelaa waxna wuu iskugu daray marka xanuunka idinkala geenaya oo idinkala fogeynaya oo iskii nacsiinaya caawa waa cawo adduune ilaahay dhexdiina saaha uga siibo adigana caafimaad cirka ka soo dhaca oo ilaahay 7 sano dushid uu kaaga soo rido ilaahay dika kugu soo siiyo rabbiga raxmaanka ah caadadan iyo qalqalkan waxaan ka saaro ilmo dayibiin oo wanaagsanna allah kugu rara ayaan ku leeyahay usoo duceeya biidnillaahi alkariim qofta kale waxay tiri guurkii ayaan la ahay guurkii dhammaa ayaa liiga hortaagan yahay yaa kaama yari ayay ugu tiri anigan oo maanta retire ka qaadanaya yaa raxmaan yaa raxiim ilaahayow nimcadaana siida ilaahu noo barakee qoftaada siina ilaahu nimco khayr qabta sii fahanti aniga markaan saas ku leeyahay ma ahan inaan adiga kaa fiicanahay inuu ilaahay iga kaa jecel yahay maahan laakiin qof walba ilaahay maalintuu ugu talagalo ayuu siinayaa nimcadiisa hadiyadiisa guurka iyo sawjka ilmaha iyo ubadka ilaahay maalintuu kuugu talagalay ayuu ku siinayaa hawalwelin hana baqanin wax lagaa soo goynayo dhul lama gelaysid biidnillaahi alkariim waana guursanaysaa sawj wanaagsan oo kii aad ku riyoonaysa ahna waa kuugu duceynaynaa rabbiga raxmaanka miduu kuu dooray oo naxariis leh oo hadda sawj afku wadaagaaye lugaha kuu dhaqa maaragtay sida ukunta kuu ilaashada cimriga inta ka dhiman aad ku noolaato janna adduunka aad ku noolaato aakhirad tii aakhirna aad ku gaarto ayaan raxmaanka kuu weydiinaynaa biidnillaahi alkariim saas markaan ku leeyahay macnaha oon ku leeyahay anigu heer tahay garaas aan jooga adigana ma guursan aan ku leeyahay ma ahan inaan kugu caynayo inaan ku leeyahay waa weynaati waa maya ma ahan sidaas inaan ku leeyahay maanta ayuu ilaahay kuu keeni doonaa biidnillaahi alkariim rajada noloshaada qofkaa ku faraxsanayd ma fahantay isku mid maan dadku qofba ilaahay maalin buu ugu talagalay inuu siiyo aniga hadduu ilaahay yaraan igu siiyey oo yaraan aan ku guursaday oo yaraan hooyo ku noqday oo maanta ilmahayga maasha allah yacni maaragtay ilmahayga maaragtay maasha allah ilmahayga yihiin adigana biidnillaahi alkariim wixii lagaa soo goynayo ciidda hoosteeda lama gelaysid ma fahanteen gabadha ayadana afartan usoo maraynaa qof walboo kiliibkan soo gaaro 4 faatixa gabadha ha usoo maro rabbiga raxmaanka inuu guur sawj wanaagsan oo nicmo sawj inuu ku irsaaqo dabadeedna ilaa wada ugu daro ma fahanteen ha loo soo duco iyadana insha allah commentiga wada duca ha noqdo gabdhaha si fiican ha loogu duceeyo maxaa soo haray waxaa soo haray commentiyadana insha allah waxaan kasoo qaadan doonaa haddii ilaahay qadaro video waan kasoo diyaarin doonaa dhiirigelinta ugu dambeysa videoga idiin wadaa waxay tahay walaalahayga qaaliga aad iyo aad baan idin jeclahay dhammaantiinna qalbigayga kuwo waxaa jira aad ugu weyn oo idinka mid ah oo runtii aad aan u jeclahay mar walbana ilaahay aan u weydiiyo wax alla waxa ay doonayaan inuu ilaahay siiyo oo jannada u weyn tahay kuwa commenti ku dhiiglayaasha ah oo maaragtay soo falceliya ama waxa aqligooda iyo cabirkooda siinaya ka hadlana waxaan leeyahay walaalahayga qaaliga ayaa tin idinkana cafis iyo masaabixna waa aatihiin ma fahanteen wadin cafinayaa waana idin dhiirigelinayaa still waxaana walaashiin oo idin dhiirigelinaysa waan idin jeclahay meeshan anaa imid adinkii maa keenin anaa imid aqligaygii maskaxdeeda dulqaadkaygaan ku imaaday saa garateen maahan maanta walaalo aad u qaali ah oo wallaahi markay ii soo qoraan commentiyada ama ay codadka ii soo duubaan laabta aan uga raaxaysto commentigooda ama codkooda ayaa jira ma fahanteen hadda markaan videogan bilaabayay gabdhahan aan u duceynayn mid kamid ah ila hadlaysay wallaahi waxay tii abaalkaaga jannatul firdaws al-acla allah ka dhigo ani cid kale kama hadlay tiri laakiin saacad walba waan kuu duceeyaa adiga walaal macaan xumaanta maxaa ku tusay walaalahaas hooyana ma wada dhalin aabana ma wada dhalin saxan wax kamaanan ku wada cunin gurigooda ma aqaan gurigayga ma yaqaanaan afrika iyo asia iyo mashriq iyo maqribaan kala joognaa isma naqaano ma fahantee markaasaa mahad celin iyo ducol iisoo duubayaa adiga xaggee wax ka
sidee wax kaa noqdeen walaal macaan cafis iyo masaabax baa iga tahay caawa haddaa dhimato faadimo qalbi maxaad ugu qortay commenti laguma cadaabayo waa ku cafiyey wiil iyo gabar waxaa doonta ahaa dhammaantiin wayna wada cafiyey marka dhiirigelinta aan idiin soo gudbinayo inay hore idiin qaado oo wax ku qabsatiin ayaa la rabaa inay maaragtay dhibaato idinku keento inaad ka naxdiin inaad tiraahdo qoftan homelessnimay soo martay yacni maaragtay waxay la cararayso iyo 90 wax u qabanayso homeless waxa uu ka saaniga qof nolosha ka dhacay qof adduunku jeexjeexay qof dhibaato qabsatay maanta wax uu qabsan kari aan jirin baan homeless u aqaanaa aniga alxamdulillah hooyo iyo aabe ayaan leeyahay waalid baan curud u ahay 90 ducasa igu dul shubaya iska dhaaf homeless inaan mareen fahmino anaguna rajada aan leeyahay inaan iyaga cagaha u dhaqo oo beedka ilaahay saa u taajiyo weeyaan rajada aan leeyahay qof noocaas ah waxa ku tilmaamay homeless dadka qalbiga ka noqday ilaahay subxaanahu wa ta'ala qalbiga idin caafiyo maskaxda laha idin caafiyo xibnaha ilaahay caafimaad iyo farxad ha idin geliyo dad wax qabsada oo hore u socdo oo nagu daysado oo role model aan u nahay ama noo noqdo wanaagsan allah idin ka dhigo mar walba waxa ogaataa waxaad tahay iyo waxaad filato ayaad helaysaa waxaad filato ayaad helaysaa soo hagarata ma ahan marka walaalahayga qaaliga xirfadanadiina waa meesheedii kama daalayo video aan duubo xirfada aan ku sheegin ma badno adan kugu dhiirigelinayaa walaalo badan oo ogeyn kuwii hore waa maanta arkay soo raacaya xilli walba dhahaya xageen kala soo xiriirnaa iyo xageen nooga soo gudbinay xageen noogu soo diraysaa gabar gabdhaha kamid waxay tiri abay macaanto 2 sano ijabaan kugu xiranahay ayaamahan ayaan dhexda ka baxay mar dhow ayaan xirfada markaas soo gelis kadib haddana soo noqday xirfada waa u baahanahay gabdho badan oo anoo kale ayaa jira kuwa aan aqaana ayaa jira markay helaan lacagtay ku iibsanayaan ma haystaan lacag ay xirfad ku bixiyaan taas ka walwalinina taas walwal kama jiree adinku alaabta intaad iibsataan oo lacag soo dirsataan hageen ka bilowna ma dhihi karti aniga qof walba oo maanta hoos yacni isdhahaaya qoftaan waxbay ama kaaroon tahay ama waxbay ku dhaantaa oo saas ii fiirinaya aniga ayaa kaa dhigaya maqsuud oo ku baraya waxaani adigu intaad go'aankaas qaadato oo naagis ka dhigto oo alaabtan yacni dee wax ku bar lehdo ay iibsato ma baran kartaa ma shaqaysan kartaa huuno ha qof bini'aadana comment ha u qorin ha ku niyad jabinin markaad aragto qof iska qoslaaya faraxsan ma qof dhimanba maxay iskaga qosashaa haddaan ahaan lahaa dadka reaction ka bixiya dadka ku qosla dadka ku digta sidee liigu jawaabi lahaa ya aniga aan qosla waan ku ilka cadeeya laakiin anoo qosla ilkeyga maad arkin weli madabaal baa maxay iskaga qosleemiyay dhiman tahay waa lagu soo qoraya waxaa soo dhan aniga dhiirigelin bay ii noqonayaan haddaa is leedahay hoos ugu celina hoos ina u noqdo iska dhaafe kuwa markay commentigaas arkaan ama waxyaabaha aniga hadda walaalahayga way ila talayaan ha soo qaadan bay dhahaan laakiin markaan soo qaato commenti yar aan ka sameeyo shows iyo wax lamida walaalaha ii soo qoraaya ama ii soo duubay codadka ayaaba dhiirigelin iigu filan maasha allah soo dhawaada habeennimo wacan hadduu ilaahay qadaro aan isku duceyno gabdhahaasna walaalaheenan aan u duceyno especially gabadha dhibaatada ku dhacday gurigeeda bahalaha dhex yaala aan u duceyno si kale iyo laaba oo min qalbiga aan ugu duceyno insha allah dhammaanteen aan isku duceyno intii xanuunsan allaha caafiya caafimaad taama dhiig dhimriga allaha sii intii dhimata allaha u naxariisto intii caafimaad qabto caafimaadka allaha u siyaasho annagana meelna loo soo jira ma ogini ilaahay tawxiidka ha nagu dilo jannatul firdaws alaclaa ha nagu irsaaqo walaal walba oo maanta shaqo la'aan haysto shaqo wanaagsan allaha siiyo walaal walba oo maanta guur rabo ama guurka ka xiran yahay ama dhibaato ka haysto ama qofuu jecel yahay la ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu jecel yahay oo jannada u weyn tahay midigta ha u saaran leh soo dhawaada habeennimo wacan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu